siyaasi Cismaan Cumar Doolo ka mid ah xisbiga mucaaradka wadana ayaa ka hadlay shirka beelaha Garxajis uga furmay buurta gacan libaax. siyaasi Cismaan Cumar Doolo khadka telefoonka ugu waramiyay Harnag News ayaa soo bandhigay saameynta shirka ku yeelanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan go'aanka madaxweynuhu kaga hor istaagay xubnaha xukuumaddiisa ka mid ah ee beeshaasi ka soo jeeda iyo maqnaanshiyaha uu shirkaasi ka maqan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Injineer Faysal Cali Waraabe. siyaasi Cismaan Cumar Doolo ayaa su'aashii ugu horeysay weydiiyay bal haatan inuu ka warramo sida uu arkay jawiga siyaasadeed ee haatan ka jira Soomaaliland. waxaanu ku jawaabay Cabdifaaq oo jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waxa weeyaan wadanku wuxuu marayaa meel xasaasi ah hogaamiye uu leeyahay oo talo iyo madaxtooye way jirtaa waxa weeyaan kulbana waa dhanka wada kacdo dhanka xumaanta u badan tahay haday wada kacdana xaggaas wadanku u jarjeersanaya haday xagga samaha wada kacdo ummadda in la walaaliyo la isku soo celiyo la mideeyo ay ka shaqaysanada wadanku wuu hagaagaya marka waxa ku leeyahay waa two sides labada dhinacba wadanku saasuu meel sharci uu saarayo dhankana uu ku badbaadi karaa xaggana uu ka shalwan karaa Cismaan hata waxa ugu xasaasisan oo dhawaan furmay shirkaas kugu imanayaan beel kamid ah beelaha reer Soomaaliland kuwaas oo ku shiraya ilmada gacan libaax shirkaas sidoo warta shirka waxaan u arkaa shir caadi ah oo beeshaasi bariheeda ay kaga tashanayso xaqna ay u leedahay waxa weeyaan waana shir natiijadiisu ay noqon doonto wuxuu ugu shanawdana ayaa ilmaana u dana ma aha markaa shirkaasi shir aad iyo aad sida looga walaacsan yahay u dhigan shirkaa wuxuu baan kuugu soo koobayaa ninkii ka walaaca ee xumaan u arkaa waa nin xumaan marka horeba wadoo doonaya Cismaan Cumar Doolo dad badan waxay aaminsan in shirkan ay soo dedejiyeen arrimo dhinaca siyaasadda ah oo beeshaasi ay tirsanayso siyaasiyiin magacalana way ka qaybgalayaan oo shirka waa lagu soo casuumay qaarkood waxa la sheegay inay yihiin kuwii sababay in shirkan la qabto siyaasadda door intee lag ku leedahay shirka horta noloshoo dhan waa siyaasad laakiin ma jirto siyaasi gaar oo shirka loogu shaqaynaya danaha beesha ayaa lagaga shaqaynaya beeshooda inta inay tahay beel ballaaran beesha uguba weyn marka runta la doonayo Somaliland ee ugu ballaaran beel ahaan dhul badan degta gobollo badan degta beeshaasaa horta marka hore danteeda iyadoo kala luntay ayaa lagu soo ururinayaa ma jiro siyaasi gaar loogu shaqaynayo iyo siyaasi gaar loogu xumaynayaa toona qodobada ugu waaweyn ee leedahay shirka way keeneen maxaa kamid ah waxaa kamid ah sida waafayeenka BBC waraysi oo adeegsatay Cabdirasaaq oo kale sida uu sheegay gudoomiyaha shirka qabanqaabada shirka Caaqil Rashiid Maxamed Jaambir chief Caaqil Rashiid Maxamed Jaambir waxa weeyaan waxa kamid ah beesha oo isweyday inay beeshu is hesho markay beeshu isweyday inay danaheedii iswaayeen dabadeed horta inay beeshu is hesho oo ay dabadeed danaheedii aayaheedii mustaqbalkeeda kaga tashato sida ummadda ula noolaanayso sida ummadda waxla qaysanayso wixii iyaga ku dheeraada inay celiyaan wixii dadka kaga maqana inay doontaan oo ay u doontaan si saxoo fiicanoo siduu rabicu doonan jiraya ayaa ujeedada ugu weyn ay tahay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland oo kasoo jeeda beeshaas ku shiraysay buurta gacan libaax waxa uu sheegay in beeshiisu ay qabto tabasho badan balse wax badan laga wada hadlay isla markaana qaar badan oo kamid ah xal laga gaaray tabashooyinka beeshan ka qabtay dhinaca xukuumadda Soomaaliland ma kamid tahay qodobada lagaga hadlayo shirka waa kamid haayo waxa weeyaan war wixii dawaadkii ay noqdeen oo wadankii waa tii laga saaray talibkii wadanka haystay wadankii xaguu qabtay xagee lala qabtay koob iyo sagaashan waa tii Soomaaliland lagu dhawaaqay sidee loo maamulay siduu noqday haddii ilaahay idmayo ummadii sidee iyo qaranka wax loogu qabtay sidee wax loo administreeyey inagu xaggeynu ka joognaa waxaasoo dhami way kamid tahay tabashaduna way jirtaa inagaba waxba inaga maqanayso waxba inagu saayida hadday wax inagu maqan yihiin aynu iska celino hadday wax inagu saayida aynu haynana aynu celino oynaan xaq u lahayn hadduu nin iska qaatay waxaanu xaq u lahayna dee ha laga hadlo oo la yidhahdo war inaad waxaanad xaq u lahayn baad sidataay miiska soo fadhiisoo runta sheeg oo fadhiga weliba ku hadal adigoo sare jaagan ha hadline taa in la yidhaahdo waa kamid weeyaan oo wasiirku sax buu ku sheegay waxaa jira Cismaan Cumar Doolo siyaasiyiin waaweyn oo magac leh oo miisaankooda aad ugu weyn yahay reer Somaliland oo kasoo jeeda beeshan kuwaas oo ka qaybgalaya shirka ka socda buurta gacan libaax siyaasiyiintaasi waxay ka tirsan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani oo dabcan uu gudoomiye ka yahay siyaasi kasoo jeeda beesha shirka qabsanaysa dad badan waxay aaminsan yihiin in shirkan loogu daweynayo xisbiga mucaaradka ee wadani maxaad kaga joogaysaa aragtida taasi waa been weeyaan Cabdiraxmaan Cirro xisbi ahaan iyo siyaasad ahaan waa nin wadanina waa xisbi Somaliland leedahay reer ahaana waa reer ka shiraya
cid u diidi kartaana ma jirto, siyaasi loo diidayna ma jiro, wax dheeraadoo isaga uga soo baxayaana meesha uguma jiraan. kuwa dawladda ku jira xitaa iman kara, siyaasi oo dhan waa loo furay. kuwa aan dabadda joogaa iman karin, xisbiba ka tirsanayn, kuwa kulmiyaa iman kara. waxa weeyaan saamayn inay ku yeeshaan oo xisbiga loogu shaqeeya unbaa shirka ka mamnuuca, laakiin inuu siyaasi yimaadaa ka mamnuuc maaha. ordo marka maxaa keenay in Faysal Cali Waraabe oo kasoo jeeday isaguna beeshaas oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka isaguna ucid in lagu soo marti qaadi waayo shirkaas, isla markaana ilaa haatan uu ka maqan yahay halkii joogay siyaasiyiin badan oo dalcan kamid yahay Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani. sida Cabdiraxmaan sida uu caqligoona siinaya Cabdirasaaqow, caqligeena saliimkaahi horta qofku waxaan doonayda aniga Faysal ixtiraam weyn u haya, haddana haddaan doonayn qarxajsiyo shirkoodaba haddaan doonaynin cid ku qasbi mayso, qori ku kaxayn mayso. marka wadaduna dee waa tanoo meesha waa halkan buurtan gacan libaax laamida tagtana waa la garanayaa. Faysal Cali Waraabena cid u diidayna ma jirto, cid ka hor joogsan kartaana ma jirto. dee lagumana toli xitaa ku talalaysidii anigaygaa kula hadlayaa la hadlay oo ku uri tagoo shirkoo dee nimaa tahay sheego ila waa tahaye, laakiin dee haddii aan dhaga dee aanay kuba olin magacaa maqlaya dee cidma qasbi karto. marka cid u diiday ma jirto, cid gaaro kaad la geeyey oo la siiyo layidhi adiguna waad macsuumintay adnama casuuminna ma jirto. waxa weeyaan kuwa yaryar ee baabuurta yaryar ee dukaankaa wataa tegi kara shirka, waaba nin weyn oo xisbi haysto oo weliba magacii reerkiile. marka inuu tagaabay ahayd oo uu ka hadlo oo uu haddii ilaahay idmayo dee xitaa ila xodxodashaa shirka dhexdiisa ka dhacayse inuu dee ka shaqaystaabay ahayd. laakiin de haddaanu isagu rabin yaa ku qasbaya wakaase bal adigu kusoo qasab cid u diro sogaamada somaliland u diro bal ha tago wakaas. warar ay heshay in hogaamiyihiisu waxay sheegeen in madaxweynaha somaliland uu shir la galay in xubnaha ka tirsan xukuumaddiisa ee kasoo jeeda beesha uu shirka uga socdo gacan libaax. waxa uu madaxweynuhu kala dardaarmay inaanay ka qayb gelin shirka, isla markaana aanay tegin. tallaabada ama go-aanka noocaasi madaxweynaha somaliland uu hor dhigay mas-uuliyiintii ka tirsanaa dawladdiisa ee kasoo jeeday beeshaasi ee uu shirka kaga hor istaagay, maxaad umalaynaysaa inay saameyn keeni karto? waxaan u arkaa inay saameyn keeni karto. waa madaxweyne wuu egyahay markaa. waxa weeyaan iisoo jindagaageey oo shirka soo furfuro mar haddaan samsanayd lacagga u dhiibin oo noolo shirka ku qaybiyo ku farraqo oo waxba yaanay reerkaasi isku ogaani waa nimankaasi ha soo tashadaane faraaxa laga qaado oo wasiiradeeda ha u tegin. arrintaasi hadday jirto ammaan weyn buu ku leeyahay. ammaanaha loo hayaaba aanay ka mid tahay. ammaanaha loo hayana waxaa ka mida inaanu qasadii dawladda uga furinba dadkii isdhexyaacaya ee maantana kanaa soo caayay, maantana hebel baan u jawaabayaadii weliba inta hadlayna inuu sii baktiyaan kula talinaya. waxaas waa waxa dadka wareeriyey. waa ninkaa tallaabunba hadhay isagaa dalkii haysta. nimankana weerar kusoo qaadi maayaan, odhan maayaan halagu duulo dalka hala baabi'iyo. niman isku soo raayaca maaha, nina carruurtiisa xabada lala dhaco iyo hala dumiye nina kusoo talin maayo. wuu garanayaa muuse wixii gar loogu leeyahay, wixii xaq loogu leeyahay, wixii dhacayna wuu ogyahay. waddanka sida loo baabiyeyna wuu ogyahay, siduu isagu ku yimidna wuu ogyahay. siduu ku yimid uu kursigan ku furay maanta wax ka qarsooni ma jiraan. inuu si xalaalo ku yimid iyo inuu si xaaraana ku yimid wuu iskala garanayaa. haddaba isagoo xaaraan ku yimid buu xalaal ku maamuli karaa oo uu dib odhan karaa aanu mehersado. marka waxa weeyaan wax cusub maaha dunida inta qofku wax la saaxiibay oo xaaraan kula saaxiibay inuu marka dambe xagga xalaasha u wareejiyo markaa uu kitaabka horgeeyo diin. waxaa jira in beelaha reer somaliland qaar badan oo kamid waxay qabsadeen shir beeleedyo. shirka inta badan waxaa kasoo baxa qodobo isku mid a oo danta somalilandna u danaynaya, islamarkaana beelahaas shiraya ay kulba kusoo qaadeen wixii u dana. qodoba dhammaantood isku wada mid a inta badan kasoo bixi jiray. maxaad filanaysaa inuu shirarkani uu kaga duwan yahay shirarka hore beelaha somaliland qabsadeen, islamarkaana qodobo ka duwan ay kaga soo bixi karaan? wuxuu kaga duwan yahay miyahow aad buu uga duwan yahay oo inta badan shirarka aad sheegaysaa la qabsaday reerkan imika meesha haysta hoodaa leh, ninkan meesha haysta reerku kasoo jeedo iyo kii hore garadag labaduba iyadoo doorasho u dhow yihiin ayaa la qabtay. wuxun baana lagu soo heshiiyey labadaba aynu dalka boodno waynu isu qabyaaladayna. laakiin kan imika doorashana ma dhowaa, siyaasadina shaqo kuma laha, waa aayo iyo mustaqbal beesha iyo dalkaba ah. marka wuxuu kaga duwanaanayaa kolleyba qodobo kasoo bixi maayaan aynu wax burburina ah. qodobadaa isku midkeed sheegaysa munaafaqada ahana kama soo baxayaan anigu sidaan aaminsanahay, inkastoona riyadi gacanta qodobadii anigu imika ku haynin. laakiin qodobo runsheeg unbaa kasoo baxaya, runsheeg iyo gar ah iyo dood.
ayaa ka soo bixi doona. dadka qaar baa aaminsan in shirkan ay keentay in cadhadii ka dhalatay doorashadii madaxtooyada Somaliland ee lagaga adkaaday xisbiga mucaaradka ee wadani. in aragtida noocaas maxaad kaga jawaabaysaa ama aad ka odhanaysaa? may waxa weeyaa shir loo kala badiyo weeyaano shirkii dargii doorashadii Cergaaba shir lagaga dhawaaqo, Burca shir lagaga dhawaaqo, Hargeysa lagaga dhawaaqo, taasi berigaasay dhacaydo shirkan shir cadha maaha, waa shir aayo iyo shir mustaqbala. waxa weeyaan taa lafteedu hadday saameyn ku yeelatana wuxuubay ku yeelan kartaa uun waardee ilaa doorashadii berigii dhaweysa sidii lagu galay waa la ogaayay, qaar dambena waa loo diyaar garoobayaaye ilaahay uu keenayaa. maxaa laga yeelayaa in kuwa dambe laga sii tashado mooyaane tii cidal kama cadhaysno oo tii sidii ay u dhacdayba lagu kala samiriyo. mid baa madaxweyne inoogu aho, mid baa wasiir maaliyadeed inoogu aho, mid baa wasiir arrimaha dabadeed ku aho, mid baa wasiir gaashaandhig ku aho. taasi haykalkeedii iyo dowladnimadeedii bay leeday. wixii laga saxayo iyada lafteeda in shirku ka hadlo iyo wixii beeshan ay xaq u leeday baan ku uri ninkaa kalena wuxuu xaq u leeyahay meel la saaro. wadankuna wuxuu qof waliba xaq u leeyahay. wadanka dadku waa isku xuquuq waa walaalo, dadku meel ma kala jiraan. laakiin in laga dhex saaro un boobkan iyo tuugadan iyo isu dhiibkan iyo waxaan arrimahaasu shirku ka hadlaya. cismaan waxaa jira in nin ka soo jeedo beeshan in ku shiraysa buurta gacan libaax oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha Somaliland dhinaca qurbaha. ninkaasi dhawaan oo hadlay waxa uu si weyn u eedeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaanu la kulmay madaxweynaha maamulka Puntland isagoo si weyn ugu soo horjeeda qadiyadda Somaliland. ninkaas iyo ficilada uu ku kacayo beeshiisiyo haatan shiraysa arrimahaasi sideed u aragtay? arrimaha waxaan u arkaa waxa weeyaan ninkaa horta Martin la yidhaahdo waynu wada maqalay. haddaynu islaana haddaba Martin xaguu ka yimi iyo yuu u shaqaynayaa iyo yaa dhalay Martin. horta Martin waxa dhalay wuxuu ka dhashay wax walba waxbaa ka dhashaa. dad markuu guri ka gubto waxa ka dhasha meel haddaad imika wax ku gubto dambas baa ka dhashaa. wax kasta oo dhaca waxbay dhalaan. midha haddaad ku rido imika dhulka ood waraabiso geedka ka baxaya midhahaa ka soo baxayaa wuxuu noqonayaa inihii aad ku rido. haddaad imika xadhaxad ku rido xadhaxad baa ka baxaya. waxa weyan horta Martin iyo dad badan oo lamida waxay inagaga soo baxeen oo ka dhashay doorashadii wadanka ka dhacday iyo jeegaantii baa dhashay. waxa weeyaan markaa Martin qofka Soomaaliga aan kuma caayayo inuu tago ama Somaliland kuma caayayo inuu Boosaaso Muqdisho tago. laakiin waxa weeyaan sidiisana ma caytamayo. markii hore wuxuu ku gafay gudoomiyaha xisbiga wadani ayuu si aad ugu gafay. rag kaloo siyaasiyiin wuu caytamo wuu ku gafay. waxa weeyaan isagana halkan fariin badan u marin maayo dadka. laakiin hadduu jiro qof ama laba raacsan oo fikirkiisa ku raacsani ayaan u sheegayaa inay 90% qaldan yihiin. madaxnimada Somaliland iyo inaad Burca iyo Hargeysa wax ka noqoto laguma noqdo. cabdiweli aad u tagtay iyo qardhaad ka soo caytanto laguma noqdo. waxa weeyaan waa iyo xamar oo tagto midna laguma noqdo. midkii taa ku fikiraya waa ninaan habeen ma jirin. waxa weeyaan qofkii ka shaqaynaya Soomaalinimo way u banaantay. laakiin madaxweynaan doonaya qardhaan ka soo ooyaya oo ka soo caytamaya horta wax macquula taasi inaan hin qof waliba oogi. markaa Martin cidna ma matalo. hadduu cid matalana wuxuu matalaa nimankaa jeegaanta la baxay ee isaga dhalay ee uu ka soo dhex baxay ee uu nacaybkan isaga geliyey xitaa intaa leeg. ila waad arkaysaa inuu nacayb ku jiro oo wuxuu ku leeyahay muxuu cirri u gelaysan waaye, maxaa waddanka loo qabsan waaye buu ku leeyahy. dee waa qalataas. muxuu waddanka ninkan xajiisa u qabsan waaye? dee waxa weeyaan inaad sababtii baadha mooyaane inaad laakiin dembi ka dhigto ood qofkii dembiile kaga dhigtaa maaha dee dembi. waxa weeyaan dembiga doon siduu u dhacay doon. mar dambe inaad ka digtoonaato doon. tabaheedii iyo xeeladaheedii samayso oo wanaag aad ku samaysanayso oonad cunti ku doonaynin. marka waxa weeyaan ninkaasi shirkana ma quseeyo. rajabaadan uu shirka usoo dirayaana waa iska wax microphone iyo waa kuwa imika dadku wax walba way isu diraan. dadku imika dadkan wax wareejiya kilibada diraa wax walba way dirayaan. wax walba waa garto way dirayaan. haddaan imika yidhahdo shimbir baa halkaa ku taagan geedkaa hoostiisa way dirayaan oo kilibka helaan. wax macno samaynayaa la diraa. markaa shirka garxasisnima matalada waa ninkaa qardha jooga. cabdiweli haddii uu tagayna cabdiwelina waxba umu geyin faa'iidaa. wax faa'iidaana ka keeni maayo. cabdiwelina faa'iida uguma jirto inuu yidhaahdo ninkan ayaa wixi tarayo caynkaasoo nin reerkaas ah. marka waxaan odhan lahaa arrinta yaan indhaha laga ridin, yaan dadka caynkaasa la raacin, yaan la dhegaysanin ayaan anigu ku talin lahaa. waa talo
anigu isagana xumaanu ma qabo wax gaarana igumuu samayn isaga laftiisa waan la taliya anigu dadka waan la taliyaa weliba kuwan garxajiska ah waxaan ku dhaha saas ma wanaagsana isagoo waxa ku urday madaxweynaha aad sheegatay waad inagu badisay arrintii meel fog inta ay isu ogeyn waa dhaafisay waayo madaxweyne aan ahay intuu cali xaraara ku waraysto maha waxa weeyaan impossible waa maskaxda qofka geli kara maaha intaas waxaynu kusoo gabagabaynaa waraysigii gaarka aanu la yeelanay siyaasi cismaan cumar dool oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ee waddani waraysigan mid lamid intaan ku kulmayno waa anigu cabdirasaaq goodnuur ee dhammaan bahawlwadeenada Harmag News oo idinkaga tegaya sidaasi nabadgelyo.